سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أحبتي في الله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الرحيم، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا عن محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد. أحبتي في الله، عنا wanaagsan ilaahay subxaana watacaala ayay mahado idil u sugnaatay. ilaahayna la kulmay bisha ramadaan oona inoo fududeeyey inaan cibaadadeeda iyo salaadeeda iyo soonkeena aan gudano. ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryayaa siduu ilaahay noogu fududeeyo noo soo gaarsiiyo bisha ramadaan inuu ilaahay nooga aqbalo. ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu naga yeelo sanadkan mise ramadaankan kuwa laga xoreynaya naarta. ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa walaalihii sanadka hore inala soomay aan sanadkii inala soomin inuu ilaahay subxaana watacaala ayagana u naxariisto, qubuurtoodan ilaahay subxaana watacaala u waasiciyo, rawdatan min riyaad aljanna inuu ilaahay subxaana watacaala uga dhigo. allahuma aamiin. أحبتي في الله إن شاء الله maanta waxaan jeclaystay qiso yar oo aada u qiimo badan inaan ila wadaago. ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryayaa aniga idiin soo gudbanayay iyo walaalahay dhegeysanayba inuu ilaahay subxaana watacaala inaga dhigo aladiina yastamicuuna alqawla wayatabicuuna axsanah, inuu ilaahay subxaana watacaala inaga yeelo kuwii ka faa'iideysta. maalin maalmaha ka mid ah qisadani waxaa soo rawanayay Ibraahim ibn al-Adham radia allahu canhu. maalin maalmaha ka mid ah waxaa u yimid nin baa u yimid, wuxuu ku yidhi yaa abaa Isxaaq إني مسرف على نفسي فأعرض على ما يكون لها زجرا ومستنقذا لقلبي. marka wuxuu ku yidhi xumaantii baa igu badatay, nafteyda waxaan kala maari la-ahay, aan ka kari la-ahay xumaanta. marka waxaan doonayaa inaad isiiso waano ay nafteyda ay dib isugu noqoto, canaana ay u noqonayso, nafteydana ayso ilaahay subxaana watacaala hadduu u saqiro ilaahay subxaanahu watacaala uga badbaadinaya qalbigeyga. markaasba wuxuu ku yidhi shan shay baan kuu sheegi doonaa, shan tusaalaan kuu sheegi doonaa, mise shan shayaal baan kuu sheegi doonaa. shantaasi hadday naftaada awooday inay samayso, naftaada faraha ka qaad, waxba kama qaadayso waxa ay sameynayso. laakiin hadday awoodi weyso inay samayso, ilaahay subxaana watacaala ha u noqoto. markaasba wuxuu ku yidhi ii sheeg midda koowaad. markaasba wuxuu ku yidhi al-uulaa faإida aradta an tacsi allaha caza wajala falaa taakul min risqih. haddaad jeclaysato mise naftaada ay jeclaysato in ilaahay subxaanahu watacaala ay ku caasiso, quudkiisa mise cunadiisa ha cunin. markaasbaa ninkii baa wuxuu yidhi qaal fa ayna aakul wakulu maa fi lardi min risqih. halkey baan ka quud cunayaa, halkey baan raashin ka helayaa, halkey baan risqi ka helayaa. wax walba adduunkan kor saaran ilaahay subxaana watacaala bay u sugnaadeen, ilaahay subxaana watacaala baa iskale. markaas buu Ibraahim bin Adham ku yidhi qaala lah yaa haada afa yuxsin an taakula min risqi wa tacsiih. macquul baa, ma caqligal baa, ma kula wanaagsan tahay inaad risqigiiska aada cunto maca daalika aad ku caasiso. markaasuu wuxuu ku yidhi qaala laa wallaahi macquul ma ahan, wax wanaagsana ma ahan, ee midii labaad ii sheeg. markaasuu wuxuu ku yidhi waidaa aradta an tacsiih falaa taskun shaya min bilaadih. haddaad ilaahay subxaana watacaala naftaada ay ku dhiirato inaad ku caasiso, dhulkiisa ha ku noolaan. markaasbuu wuxuu ku yidhi yaa Ibraahim bin Adhamow, sidee bay ku dhici kartaa wuxuu ku yidhi marka midii labaad wuxuu ku yidhi midii labaad an tacsiih falaa taskun min yani dhulkiisa ha ku noolaan. markaasbuu ku jiri kayfa yuxsin an taakul min risqih. mar wuxuu ku yidhi halkey baan ku noolaanayaa dhulka dhan ilaahay subxaana watacaala. qaala rajul haadihi acdam min aluulaa. tani waxay kasii weyn tahay midii horeba. idaa kaana almashriqu waalmaqribu maa baynahumaa lah fa ayna askan. wuxuu yidhi dhulka qorax kasoo baxa iyo qorax u dhacba ilaahay subxaana watacaala baa iska leh, halkey baan ku noolaanayaa. markaasbuu wuxuu ku yidhi Ibraahim bin Adham qaala yaa haada afa yuxsin an taakula min risqih wa taskun bilaadahu wa tacsiih. inaad quudkiisa ilaahay aada cunto, cunadiisi aada cunto, dhulkiisana aad ku nooshahay, maca daalika inaad ku caasiso, macquul baa, ma caqligal baa, ma suurtagelaysaa. markaasbuu wuxuu ku yidhi ninkii laa haati thalith
wallahi caqli ma gelaysa uu yiri, macquulna maahan, ee midii saddexaad ii sheeg. markaasba wuxuu ku yiri idaa aradta an tacsiih وأنت تحت رزقه وبلاده فانظر موضعا لا يراك فيه مبارزا له فاعصيه فيه. wuxuu ku yiri adigoo quudkiisa yacni quudkiisa iyo cunadiisii ku nool, dhulkiisina ku nool, markaasi haddii naftaada ay ku ogolaato inaad ku caasiso, markaas waxaad raadsataa meel aad ilaahay subxaana watacaala aad kaga dhuumato, kadibna ilaahay subxaana watacaala xumaan ilaahay subxaana watacaala ula bareer. markaas wuxuu ku yiri laa, sidee macquul ku noqonaysaa? markaas wuxuu ku yiri kayf وهذه كيف wuxuu ku yiri sidee bay ku dhacaysaa buu yiri, wahuwa muطalicun calaa maa fi saraa'ir, sidee bay ku dhacaysaa asiga og ilaahay subxaana watacaala wax walba quluubteena ku dhex jiro ay ku qarsoon. markaas wuxuu ku yiri yaa haada afa yuxsan maca caqli galbaa an taakula min risqih, quudkiisa inaad cunto, wataskuna bilaadahu watacsi wahuwa yaraak, yacni inaad quudkiisa aad cunto, dhulkiisa inaad ku noolaato, mar walbana meel walbana kaa arkay waxaad ku sugan tahay, wuli qalbigaaga miyuu ku ogolaanaya inaad ilaahay subxaana watacaala aad ula soo bareerto inaad xumaan samayso? markaas wuxuu ku yiri laa wallah, macquul ma noqonaysa. midda afraad ii sheeg. markaasbu wuxuu ku yiri idaa jaaka malaka almowt, malaka almowt markuu kuu yimaado liyaqbida ruuxak, nafta inuu kaa qaado, waxaad ku tiraah faqul akhbirnii akhirnii dib ii dhig xataa atuub tawbatan nasuuxa وأعمل لله عملا صالحا, dib ii dhig san ilaahay subxaana watacaala toobad nasuuxan ugu toobad keeno, toobad beri ah, oo camalo wanaagsanna ilaahay subxaana watacaala usoo aqbalo, usoo samaysto. markaasbu wuxuu ku yiri ninkiiba wuxuu leeyahay caasigii, laa igama yeelayo malakulmowtka, taa igama yeelayo yiri malakulmowtka. markaas wuxuu ku yiri kayf yaa haada fa anta idaa lam taqdir an tadfaca canka almowt, sidee baad taa u samaynaysaa markaad ilaahay subxaana watacaala aad uga caasinaysaa haddaadan awoodi karin naftaada inaad malakulmowt ka celiso, adigana og waidaa jaa ajalahum laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun uu ilaahay leeyahay, sidee baad taas ku samaynaysaa? markaasbuu wuxuu yiri ibraahim bin adhamow mid shanaad ii sheeg. markaasbuu wuxuu ku yiri ninkii ibraahim bin adham idaa jaa-atka zabaniya yowma alqiyaama, zabaniya markay kuu timaado, malaa'igtii zabaniya markay kuu timaado iyo maalinta qiyaama, liyaakhudunaka hada ila annaar falaa tadhab macahum, markay malaa'igta naarta ay kuu timaado inay ku wado ay naarta kuusii wado ay doonayso, ha raacin buu ku yiri. qaala laa yadacuunii ma ideynayaan, walaa yaqbaluuna mini, taasna igama yeelayaan. markaasba wuxuu ku yiri fakayfa tarju najaata idan, sidee baad ku rajeynaysaa, sidee buu qalbigaaga u rajeynayaa inaad ilaahay subxaana watacaala intaasoo dhan haddaadan awoodi karin inaad ku samayso, aada badbaadna u hesho? markaasuu ilaahay subxaana watacaala ninkii wuxuu ku yiri qaala lah, markaas ninka wuxuu ku yiri ibraahim bin adham buu ku leeyahay yaa ibraahim xasbi ana astaqfir allah wa atuubu ilayh. ilaahay subxaana watacaala buu u toobad keenay, ilaahay subxaana watacaala buu u noqday. marka waxaa la sheegaa inuu ilaahay subxaana watacaala uu toobad keenay, markaas wixii ka dambeeyay uu ilaahay subxaana watacaala qof ku xiran buu ahaa, ilaa uu ka geeriyoonay. ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu xaqa inagu sugo, ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu inaga yeelo kuwii had iyo jeer ilaahay subxaana watacaala macigiisa ah, xumaanta iyo wuxuuna ilaahay subxaana watacaala raaliga ka ahayn ilaahay ka fogeeyo. baarakum allahu fiikum wajazaakum allahu khayra, wasalaamu allahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu.